السلام عليكم. shalay taariikhda miilaadiga waxay ku beegneyd 21 November 2021 taasoo dalka Soomaaliya loogu asteeyay maalinta macalinka Soomaaliyeed. 1974 ayaa dawladii Soomaaliya ee xilligaas jirtay waxa ay 21 November u aqoonsatay maalinta macalinka Soomaaliyeed. waxaan mowduuceena maanta uga hadli doonaa kaalinta iyo mudnaanta macalinka Soomaaliyeed oo xilligan ku shaqeeya duruufo adag. ku soo dhawaada mowduuceena maanta. إلهي سبحانه وتعالى سيد القرآن كيسا كويري وحو آذانها بري وحو سن أقون لهين وحاسي حقيق جرتاع إن أن أقونت معلن الآن لكسبن كرين وحانا تسالة وناكسن وسو قادن كرنا رسول كان محمد صلى الله عليه وسلم إن مركي وحي وكسو دقاي وجبريل وها بري أو القرآن ككتو الأخرناي أنك هدي أن هاي بلشوين تسوماليات معلن كقيمة وين بونوغو فديا كسو بلو دكسيق قرآنك أو أهلك ومهمسن يعرورت لغدسو إلا جامعة macalinka Soomaaliyeed waxa uu waxbarida carruurta Soomaaliyeed gacanta ku soo hayay muddo aad u fog iyo marxalado kala duwan oo qaarkood aad u dhib badnaayeen tiyo ay jirto inta badan macallimiinta Soomaaliyeed waxa ay ku shaqeeyaan mushaharaad aad u yar oo ma jiro macallin baranimadiisa daaro ka dhistay ama hanti kale ka kasbaday laakiin waxa kaliya ee uu hawshiisa qiimaha badan ka dheefaya ayaa ah magac sharaf ixtiraam iyo in meel walba uu tago fadhiga loo istaago waxa ammaan mudan macallimiinta isxilqaamay oo markii ay xukuumadii dhexe burburtay dugsiyada iyo jaamacadaha dib u soo nooleeyay kana dhiidhiyay in waxbarashada daad ku qaado carruurta Soomaaliyeed ee xasilooni darrada iyo kala dambeyn la'aanta ku dhashayna ku fiirsan waayay in ay ku barbaaraan jahli iyo aqoon la'aan intii umudnayd adamaray sanadahan dambe bulshadeena waxa ku soo badanaya in shaqada macalinimada noqoto mid ku meel gaar ah iyada oo qiimihii iyo muhiimadii ay lahayd lagu soo koobo fikradda gaaban ee ah intaad shaqo fiican ka helayso iska sii noqo macallin fikirka noocan ahayna waxa uu saameyn ku leeyahay qiyamkii iyo kalsoonidii xirfadda macalinimada jaamacadaha ku yaala dalka Soomaaliya gaar ahaan caasimadda dalka ee Muqdisho heer waxa ay gaareen in kuliyadaha waxbarashada ama macalinimada ay ku dhigaan si bilaash taasoo muujinaysa in kuliyadda waxbarashada ama macalinimada loo daneynayn sida kuliyadaha kale sidoo kale macalinimadu waxay shaqooyinka ugu hooseeya ee wadanka laga qabto taas oo horseeday in aan la helin macallin tayo iyo xirfadba leh haddaba iyada oo uu macallinku yahay hoygii iyo hooskii aqoonta lama siinin mudnaan iyo qadarin gaar ah waana ay yar tahay inta abaalkaas u haysa miisaanka macalinimo in la ilaaliyo ma aha wax sanadahan dambe bilaabmay macallinku waxa uu ku maqaam iyo darajaba dhawaaday rususha tusaale ahaan rususha waxa loo soo dirayay oo loo soo saaray inay ummadda ka saaraan mugdiga oo ay u horseedaan nolol iftiin leh oo Ilaahay raali ka yahay sidaas si lamid ah macallimiintu waxa ay heegan ugu jiraan sidii ay ummadda iyo ardaydaba uga saari lahaayeen jahliga door muhiim ah ka ciyaaraan barbaarinta carruurta ilaa ay ka noqonayaan aqoon-yahano ku filnaada noloshooda iyo tan qoyskoodaba maanta waxaa la yaab noqotay in hoos loo dhigay qiimihii macalinka laguna baraarugsanayn samirkiisa dadaalkiisa dulqaadkiisa iyo darajadiisaba haddaba maadaama hoos loo dhigay milgihii iyo maamuuskii macalinimo waxaa dawladda bulshada iyo ururada u dhaqdhaqaaqa macallimiinta looga baahan yahay inay dardargeliyaan howlaha kala duwan ee kor loogu qaadayo karaamada iyo sharafta macallimiinta dawladda oo ah tiirka koowaad waxay abaabuli kartaa barnaamijyo lagu tayeenayo korna loogu qaadayo qiimaha macalinka qaar ka mid ah tallaabooyinkaasna waxaa ka mid ah in kobcin iyo kor u qaadis badan lagu sameeyo xirfadda macalinka iyada oo loo qabanayo tababaro xiriir ah aqoon isweydaarsiyo iyo xoojinta xirfadaha macalinimo si loo helo macallin tayo leh in dawladdu iyada oo kaashanaysa hay'adaha maxalliga ah iyo kuwa caalamiga ahba u kordhiso mushaharka macalinka si uu u yeesho awood dhaqaale oo dabooli karta baahiyihiisa asaasiga ah iyo tan qoyskiisaba in wacyigelin loo sameeyo qaybaha kala duwan ee bulshada si ay isugu dayaan in ay wax badan ka geystaan dhiirigelinta macallimiinta ugu dambeyntii kobcinta iyo kor u qaadida qiimaha macalinka ee bulshadu waa mid ka mid ah waxqabadyada ugu wanaagsan maadaama macallimiintu ay wax baraan qaybaha kala duwan ee bulshada in macallin tayeysan la helaana waxay ka mid tahay dadaalada lagu daaweynayo xanuunada ku dhaca bulshada sida jahliga qabyaaladda qaadka iyo qaar kaloo badan daawadayaal muuqaalkeena maanta halkaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa haddii aad ka heshay muuqaalka fadlan like saar lana wadaag asxaabtaada kale waa inoo muuqaalkiisa xiga asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu waxaan nahay wanada macalinka waagii baryaba awbax laga waraabsho